muxuu yahay dhoolatuskan iyo isa soo bandhigistan ay Sofia Loren ugu baaqayso danaha Soomaaliya ee 30,000 ee ciidanka Mareykanka ah ee amarka Bush ku soconaya ay iskugu keenayso ee ay ku aadayso dalka ay macluushu dadkiisii iyo deegaankiiba idlaysay maxay ka samaynayaan Soomaaliya oo aan ahayn iska dhiska saxaafadda iyo in ay dadaan jariimooyinka waaweyn ee taariikhiga ah ee foosha xun ee Yurub ay biyaha wajiga ku ilaashanayso iyaga oo dadaya ceebtooda soo jireenka u ah iyo la safashadooda dunxumaanta ah ee ay ku dadayaan dabargoynaha ay dalkaas ka geysanayaan waxa ay kamaradaha saxaafadda iyo telefishinadu marba ka soo duubayaan Sofia Loren iyada oo malqaacad inta afka u gelinaysa ilmo Soomaali ah oo qiiqdii u dambeysay ay ka marayso macluul darteed si ay u muujiyaan miisaaniyada Yurub warkeedu waa caan saaxiibayaal Yurub ayda ayay koofeerogeeyaan si dhogorta loogu gaabiyo dhakhtarada way u geeyaan si looga daaweeyo isku buuqa dhakhtarada isqurxintana way la aadaan si sanka loogu yareeyo xataa Roma waxa ku yaala suuliyo iyo barkado dabaaleed oo u gaar ah ayda milyaneeradu waxay dhaxalkooda ku qoraan aydooda hantidoodana waxa ay uga tagaan bisadahooda marka laga sheekaynayo miisaaniyada Yurub boqolaal waji oo noocaas ah ayaa kaaga soo baxaya waxa ay halkaas dacwado ku oogaan cid sida kakan ula dhaqanta doofaarada ama si dadban u yeesta ayda laakiin muslimiinta Bosnia marka ay noqoto waxa ay u geysanayaan iyo sida ay ka yeelayaan taariikhda ayaa xataa waji gabax ka dareemaysa halka dagaalka Bosnia weydiinay hoos dhigan qodob kala raaciye dagaalka Bosnia waxa uu socday xilligii buugan la qoray ee Dr. Mustafa Maxamuud Allah u naxariisto buugan qoray laakiin dagaalka Bosnia iyo muslimiinta Herzegovina maalinta lagu xasuuqayay 10 jibaar mid ka badan baa inagoo shaahidto arkayna maanta dhacaysa oo horteena taala oo Falastiin inta yar xogaha ama hordhacyadaasi aan idin la wadaagay waxay hordhaciisa iyo iba furu yihiin buuga dhagartii weynayd ee Dr. Mustafa Maxamuud oo qoray